سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديا قضبضاد ورركنا كمغلي دونتان وحاكمدا حقاقاتي بلفايا قعانتا كودغا إسراكيل سرسرع وكترسن ملتريغا دالك إريتريا iyadoo dagaal aad u xooggan ka soconayaan xuduudda gobolka Tigray-ga iyo dalka Eritrea ciidamada TPLF ayaa sheegay inay burburiyeen fariisimaha ay lahaayeen ciidamada Eritreanka dagaal culusna uu ka soconayo deegaanada xuduudeedka Badama iyo Rama ciidamada TPLF-na ay gulaad u ballaaran ka gaareen dagaalka ka soconaya xuduudda u dhaxaysa Tigray-ga iyo dalka Eritrea ayadoo xogaga TPLF gula aad u ballaaran ka sheeganayaan dagaalka ka soconaya xuduudda dalka Eritrea sidoo kale buraleyda deegaanka Canfarta ayaa laga maqlayaa hubka aadka u culus ay soo adeegsanayaan ciidamada huwanta ay hogaaminayaan militariga dalka Itoobiya iyo xogaga TPLF ciidamada dowladda Itoobiya ayaa isticmaalaya awoodii ugu dambeysay iyadoo xogaga Tigray-ga ay halkaasi ka sameynayaan iska caabin aad u ballaaran dagaalkuna uu deegaano aad u ballaaran oo ka tirsan gobolka Canfarta uu ka soconayo warbaahinta ayaa loo diiday guud ahaanba inay deegaanadaasi warka ka soo tabiso ayadoo dagaaladu aad u culus yihiin xogaga Tigray-guna ay doonayaan gabi ahaanba gobolka Canfarta inay go'doomiyaan goobaha istiraatiijiga ay gacanta ku dhigaan hase yeeshee ciidamada dowladda Itoobiya iyo ciidamada garabka siinaya deegaanada dalka Itoobiya iyo ciidanka dalka Eritrea waayadii ugu dambeeyay ka dagaalamaya gobolka Canfarta ayaa isticmaalaya awood dheeraada waqooyiga Gondar wali waxa ka soconaya dagaal aad u culus oo u dhaxeeya xogaga Tigray-ga iyo militariga dalka Itoobiya ayadoo dagaalada ka soconaya deegaanka Axmaarada ay aad u culus yihiin qaxiyeen bulsho aad u tiro badan oo ku nool gobolada Wallo walkeed waqooyiga Gondar iyo deegaano aad u tiro badan dagaalka ka soconaya gobolka Axmaarada ayaa ka soconaya deegaano aad u ballaaran ayadoo ciidamada dowladda Itoobiya iyo maleeshiyaadka deegaanka Axmaarada ay u taaglayeen dagaalka ay kula jiraan xogaga Tigray-ga xogaga TPLF-na ay magaalooyin waaweyn gacanta ku dhigeen halkaana ay go'doon ugu jiraan deegaan aad u tiro badan jamhadda Ola ee xoreynta shacabka Oromiya ayaa deegaano aad u ballaaran kala wareegtay militariga dalka Itoobiya ayadoo gobolka Wallaga ee deegaanka Oromiya ay ka soconayaan dagaalo aad u culus oo ay qaadayaan ciidamada xoreynta shacabka Oromiya ciidamada jamhadda ayaa taageerad u ballaaran ka helaya dhalinyarada deegaanka Oromada oo si weyn u garab istaagtay ciidanka jamhadda ayadoo dagaalyahanada OLF ay sheegeen inay burburiyeen fariisimaha ay lahaayeen ciidanka gaarka ee deegaanka Oromada saraakiil aad u tiro badan oo ka tirsan ciidanka deegaanka Oromiyana gacanta ay ku hayaan boqolaal ka tirsan ciidanka liyuga ee deegaanka Oromadana ay qudha ka jareen welina dagaalo culus ay ka soconayaan gobolka Oromiya militariga dalka Soomaaliya ayaa weli sii wada howlgallada ballaaran ee lagu baacsanayo xogaga argagixisada ee firxadka ku ah gobolka Hiiraan ayadoo gobolka Hiiraan ay ka dhacayaan dagaalo aad u culus oo u dhaxeeya xogaga argagixisada militariga Soomaaliya iyo dhalinyarada mutadawiciinta ee macawisleyda xogaga argagixisadana laga xoreeyay deegaano aad u ballaaran ayaa weli waxa ka soconaya howlgal aad u ballaaran gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ayadoo bulshada Soomaaliyeed guud ahaanba ay si weyn u garab istaagtay ciidamada dowladda Soomaaliya ee doonaya guud ahaanba dalka Soomaaliya in amaankiisa gacanta ku dhigaan xogaga argagixisadana gabi ahaanba ay ka xoreeyaan dalka Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha 10aad 2022 haddaynu u guda galno wararkeeni oo faahfaahsan
dagaalyahanada TPLF ayaa sheegay in ciidamada dalka Eritrea ay gam ka dhigeen fariisimadii ugu waaweynaan ay ka qabsadeen xuduudda u dhaxaysa dalka Eritrea iyo gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. ciidamada Eritreanka ee hubka aadka u culus ee taangada sida ee xuduudda gobolka Tigray maalmihii ugu dambeeyay ka dagaalamayay ayaa la sheegay in jabhad culus uu ka soo gaaray dagaalyahanada TPLF oo weeraro xooggan ku qaaday ciidamada Badma ku sugan iyo deegaanada Rama ayadoo maalmihii ugu dambeeyay ay dagaalo culus ka soconayeen gobolka Tigray xuduudda uu la wadaaga dalka Eritrea. militariga dalka Eritrea uu si weyn ugu soo qulqulay gobolka Tigray ayay xogaga TPLF guulaha balaaran ka sheeganayaan dagaalka ka soconaya xuduudda Ethiopia Eritrea. sidoo kale dhulka buraleyda ee deegaanka Canfarta ayaa laga maqlayaa hiraaga hubka ay adeegsanayaan ciidamada TPLF iyo militariga dalka Ethiopia. dagaalada culus ayaa ka dhacay buraha silsilada Zobetu ayay xogaga Tigray ay doonayaan gebi ahaanba inay gacanta ku dhigaan dhulka istiraatiijiga ee deegaanka Canfarta. dagaalkan ay ku sii balaariyaan deegaano hor leh ayadoo dagaal xooggan deegaanka Canfarta uu ka soconayo. militariga dalka Ethiopia oo taageerada balaaran ka helay kan Eritrea ayaa xogaga Tigray awoodeeda balaaran kala hortagay ayadoo weli dagaalku ka soconayo deegaanada balaaran. qoyga Gondar ee deegaanka Axmaarada ayay ka soconayaan iska hormaadiyada balaaran oo u dhaxeeya militariga Ethiopia ciidanka gaarka ee deegaanka Axmaarada isku dhinaca iyo dagaalyahanada TPLF ee muddada dheer ka dagaalamaya gobolada Wollo walkeeda waqooyiga Gondar iyo deegaanada balaaran oo ka tirsan deegaanka Axmaarada ayadoo hubka aadka u culus laga maqlayo magaalooyinka waaweyn deegaanka Axmaarada. dagaalyahanada TPLF iyo ciidanka dowladda hubka isku adeegsanayo. dagaalyahanada Oromada ee OLF ayaa sheegay gobolka Walega inay ka qabsadeen ciidamada dowladda deegaanada balaaran. dagaalkuna uu ku sii fidayo deegaano hor leh ayadoo dagaalka u dhaxeeya militariga Ethiopia iyo xogaga xoreynta shacabka Oromia oo marka ka dambaysa deegaano hor la ku sii fidayo dagaalada qoran ay ka soconayaan gobolkaasi. qodob-wareedkeena ugu dambeeyay militariga dalka Soomaaliya ee taageerada ku balaaran keenaya dhalinyarada macawisleyda ama dhalinyarada mutadawiciinta ayaa sheegay inuu deegaanada balaaran kala wareegay xogaga welina howlgallada balaaran ee xogaga argagixisada lagaga saarayo dalka Soomaaliya ay ka soconayaan bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya. ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa wacad ku maray inuu soo afjari doono xogaga argagixisada guud ahaan dalka Soomaaliya ka sifayn doono ayadoo dagaalo culus ka soconayaan koonfurta dalka Soomaaliya. tani kulantii dambo wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.